Asalaamu calaykum. Waxaan halkan ku duubeynaa maanta sida loo install gareeyo loona isticmaalo PHP cashirkeena ugu horeeyay. Marka hadda waxaan ka bilaabeynaa sida loo install gareeyo kadibna waxaan qoraynaa koodkeena ugu horeeyay ku tijaabin doono. Waxaan sameyneynaa halkan ku dhufaneynaa Zambana soo furaneynaa waana install gareeynaa linkiyada description ka yaalaan baa kasoo degsada. Ayaa ku leedahay nagasti hadda nagasti iska dheh no PHP aan rabnaa iska xireyno nagasti aan ku leenahay oo installation-kan oo dhameynaa oo isku soo laabaneynaa. Ujeedada hadda waa uu dhamaaday waxaa sameynaya finish aa leedahay luqadaa dooraneysa German iyo Ingiriis kadibna waa kaas okay ku noqon waa kaas oo noo soo baxay aan isticmaali karnaa. Application-kan labadaas oo degsan laakiin aniga hore u haystay hore iigu duubnaay marka adiga haddaa rabtid soo degso aniga hore iigu duuban yahay application-ka atom marka halkaas uga baxayaa. Waxaan sameyneynaa halkan oo waxaa tegeynaa qaybta C-dan tegeynaa local disk C-da ayaan tegeynaa okay kadibna waxaan kasii tegeynaa C-da markaa tagno Zambia waa kan Zambia hadda aan install gareysano halkaas wuu galayaa local wuu galayaa markaa soo furtid aan niisii fududeeyo PC-ga soo furaya PC-ga markaa soo furtid local diskiga qaybta window ku duuban yahay ayuu galaa kadibna meesha ugu dambeyda ka fiiri Zambia dhufaneysaa oo ku dhufatid folder waxaa raadineysaa ht docs-kaas ayaa ku dhufanaya kaas marka wixii inta ay project-iga ku jira project ku saabsan halkaan aad gelineysa. Hadda folder halkaan ku sameysaneynaa qoreynaa new folder aan leenahay isaga qoreynaa YouTube oo kale YouTube aan ku qoreynaa YouTube markaan ku qornaa halkaan waxaan ku sameyneynaa file atomka marka meeshii hadda ayaan toos u tegeynaa toos u tagno waxay ahayd local C-ga ayay ahayd local C-ga Zambia aan ku dooraneynaa hoosoo yaala mar walba HC docs-kaan dooraneynaa YouTube aan ka dooraneynaa waa kana folderkan waa folderka aan rabno YouTube-ka select folder aan leenahay waa kana noo furmo saa ujeedid marka halkan waan iskaxiraynaa kan midkii data aan abuuranay haddaan rabno wax badan aan ku abuuri karnaa new file aan leedahay waxaad dhihi kartaa oo kaleeto YouTube waad dhihi kartaa php halkaas wax badan aad ku abuuran kartaa. anaga index-kaan la geeyey kadibna maxaad sameyneynaa kale syntax-ka oo PHP ayaan sameyneynaa waxaad leedahay inta imaaneysaa waxaa qoreysaa PHP aa qoreysaa waa kaasa markaa qortid si automatic kugu furmaya
halkaana waxa waaye waa meesha koodka ugu qorneed echo aad leedahay waxaa qoraysaa printy oo kaleeto hello 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 world oo kale aad qoraysaa hello world kabacdi haddana inta imaanaysaa assalaamu calaykum waa qori kartaa marka waa kasaa haddaa rabtid commenti aa qoraysaa commentis aa qoraysaa commenti saana dhehaysaa haddaa rabtid iska qolaada waxaa inta ku qorqoray haddaa rabtid commenti noocan kalena wuu leeyahay waa qori kartaa Ferriera haddaa rabtid qabsan kartaa Ferriera qabsanaysaa Ferriera waxaa u qabsanaysaa caadada doolarka ka hormarinaysaa name aa leedahay equal aa leedahay wixii au baas leedahay sheegi tusaale ahaan waxaa u baasayaa aniga magacayga oo kale u baasaa waxaana kusoo xirayaa quotation kadib waxaa leeyahay iisoo daawaca oo kaleeto magacaas magaca iisoo daawaca echo iska tirayaa kan name aa leeyahay calaamad doolarka aa leeyahay marka hore kabacdi name aa leeyahay waa kasa magacaasa iisoo baxay maxamed inaan rangareeyaa rabaa marka si u rangareynaa marka hore waa inaan soo kacsadaa saambihii aan idiin sheegay starti aa leeyahay kana starti aa leeyahay hello aa leeyahay hello kadib labadooda waa ii kacsan yihiin waxaa ii muhiima abaajiga iyo mysql kadib browserkayga soo kacsanaa halkaana imaanaysaa waxaa dhihi kartaa admin aan leeyahay oo qaybta adminka geeyo ayaa waxaan ka dooranayaa halkaana imaanayaa folderkii aan samaystay youtube aan leeyahay youtube youtube filekii ahay halkan safe kuma soo dhihin saa u malaynayo safe kama dhihin hadda marka safe aan dhahay ila fiiriyaa halkaasa wixii oo dhan waxaana daarid waa kala saarsaari kartaa waa u kala saarsaaraysaa mid walba waa imaanaysaa pr leeleedaa bas pr anoo kale hadaan imaano html ma lahan sorry html dhex gelineynaa control a x waxaan leenahay html aan leenahay kabacdi halkaan imaanayna halkaana dhex gelinayna koodkeeni leedahay dogtahay baa leedahay html ha sheegi ama html la dhehe dogta maayada automatic u qormayso kadibna halkaan imaanaysaa halkaan baa waxaa ku qoraysaa php tag markaa qortid okay leedahay php koodkaaga dhan halkaan ku dhex qoranay marka hadhow waxaa kuu fududaanaysa inaad isticmaali kartid php haddaa rabtid halkaana la imaan kartaa meesha inaad kasoo dhamaatid imaan kartaa php halkaan ku dhahay halkaana koodkaaga iskaga qoran haddaa rabtidna meeshaana ku qoran kartaa waxaad dhihi kartaa tusaalahaan hadda waxaan leenahay wax noo soo daawac oo kale echo aan leenahay intaa waxaa gelaynaa hello oo kale oo kasa wuxuu noo daawacan yahay hadda ku laabano roomaheena refresh dheh hello oo kasa hello aa noo soo baxday darabna wax kale inta ku qoran waxaan sameynaynaa Ferriera darabna qabsanaynaa Ferriera qabsanay waxaan ku qoranaynaa name kale intaa waxaan leenahay wax noogu shub magac noogu shub oo kaleeto line breaking ku sameynaya kadibna simcolana kusoo xiraysaa safena waa leedahay chroma soo fur waxaa ku dhacdaa refresh dheh
ma soo daabicin waxba inaad soo daabacdid dabacaddii ilowne adoo soo daabicin wuxuu kuma shaqeynaya eco iska tir waxaa dhahdaa magaca dollar signka ka hormarine mar walba name aa leedahay marka namekan save aa leedahay oo israacaa helowda iyo waa israaci kan iga tir control s dheh kabacdina waa kaasaa tanaa kan iga ugu weyn control s dheh kadibna imaw meesha waxaa jirahay dollar sign ne variabelka horaa qalabnaa miya waa kaasaa wuu israaciya hadda waxaa rabnaa inaan kala jarno si aan u kala jarno waxaa leedahay si aan u kala jarno kana waxaan ku sameynaynaa helowda maadaama uu raaciyey waxaa leeyahay waxaa igu soo daawacdaa leen keligeed igu soo daawacayada pr taagiyaa fure pr aa leedahay marka hadda uu kala jaray sida ujeedid meeshaan ku kala jaray laba xabana oo kala dhigay haddaan rabna waxaan sameyn karnaa commentiga dhowr nooc oo qoraynaa oo kasta gees aa qoraynaa waxaa leenahay hello si kalena oo qori kartaa waa dhigi kartaa variabelna waa qabsan kartaa waxna waa soo daawacan kartaa marka korsadaas wadi doonaa hadduu la yiraahdo laakiin maanta halkaan ku egta